war degdega oo naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa iminka waxa uu sheegayaa in koox naftooda haligayaal ay weerareen saldhigga booliiska ee degmada Kaxda. dadka Muqdisho oo xilligan badankood hurdada ku jiray waqtigeedii ayaa maqlay dhawaqa jug xoogan oo qarax la moodo, waxaana sida laamaha amniga xogta aan ka helnay ay tilmaamaysaa in kooxda weerarka soo qaaday markii koobaadba ay halka ku weerareen sabanno iyo hub kale oo culus, taasoo dadka Muqdisho dhawaqa marka ay maqleen iyo la qabsigoodii qaraxyada dhici jiray ay u maleeyeen noocaasi qarax. inkastoo hubka la adeegsado waa aad u cuslaa, haddana saraakiisha amniga xogta aan ka helay waxa ay tilmaamaysaa in loo gurmaday kooxihii ama ciidankii dowladda Soomaaliya ee ku sugnaa saldhigga booliiska ee degmada Kaxda. dadka ku sugan aaga degmada Kaxda gaar ahaan ilaa Ax Control iyo qaybaha kale ee magaalada Muqdisho ayaa maqlay dhawaqa aadka u xoogan ee hubka la adeegsanayo. dadka oo hurdo ku jiray ayaa taasi waxay sababtay in ay salalaan oo ay hurdadii kasoo toosaan, iyadoo magaalada Muqdisho xaalkeedana iminka uu yahay mid dagaal, maadaama qaybo kamid uu dagaal ka socdo. xogta aan helnana waxay tilmaamaysaa in kooxda ka dagaalanta Soomaaliya ay dagaalkaasi soo qaadeen oo ay saldhigga soo weerareen. wararkan waxay kasoo kordha halkan ayaad ka daawan doontaa, kalena socon doontaa. adiga ayaa ugu horeeya cidda hesha xogta sugan.